wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiirka waxbarashada iyo wasiiru dowlaha wasaaraddaasi ayaa casho sharaf u sameeyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda weyn ee magaalada Burco. Munaasabadani casho sharafta oo lagu qabtay Hotel Palace ee magaalada Burco. Casho sharafeedta lagu maamuusay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda magaalada Burco kadib waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda magaalada Burco isagoona wasiirada uga mahadnaqay casho sharaftani kana hadlay arrimo badan. marka aad iyo aad baan u mahadinaynaa mas'alaadka ay noo sameeyeen waxay u nahay oo maantana waqtiga kaftarno iyo hadallayda aflay waxaan filaynaa in maanta fursad ma helin laakiin markay jaamacadda ka hadlaynay jaamacadda gudaheeda aad iyo aad baa mawaadiicdii laga hadlayo weliba tabnaa jaamacadda gudaheeda ma jira marka jaamacad ku midaysan ujeedooyinka iyo gobolooyinka ay leeyihiin maanta waxaynu isla qaadanay inay tahay shaqada inaynu abuurano inagu sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda waxbarashada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa weeye waxaan aad ugu mahadnaqaynaa oo anaga laftaydu wasiirka madaxtooyada هذه شرعان قائم بعضها نوعها جوبي اليوم وعلى ما إلهي وسيلة تحسين واليوم إذا كان واحد اللي يقول عليه واحد يقول واحد من عندنا وحاجة واحد حفلة أو بنتي البوم في وشركة مدحتوها ومركزتي أنت تصل أهمية من يتمد أي كلمة هاي الكلمة ورفع صوتها مرتها هكا مرسا بنتي تنوي في القلب المديسية حتى أدور وقت صوتها هذا البرنامج هذا ما عاد كفري وما أنت اللي يجيبني واحد أكثر من مرة تشاهدوني إنه على كفر عشانونه آمنين حفلة لهم تشاهدوني واحد ثاني وأختي هنا وأنزل في الجليل وسومنا يوم الذكرى قاعدين هذا يمكن نقول مثلا قاعدين ومشى ولو رزقني ما يكمل الدنيا نوشة يا جماعة الكولار كل ما يستطيع إن نحضر قانون ونحفظ النور يسود بينا كما معها عشرة الوقت اليوم ما شاف بدأ أنت ولا أنت مسيء أنت معلم أنت كلا شوفتها قفل بعشرة وحنا نقول سوق بس شهر dufcadani oo heertii afraad ee ka qalin jabisay jaamacadda weyn ee magaalada Burco ayaa casho sharaftan ay wasiiradu u sameeyeen marka laga yimaado aanay jirin qorshe shaqo abuuris oo loo sameeyo ardaydaasi mana jiraan ilaa iyo hadda cid isku taxallujisay arrinkaasi Shaafici Maxamed Ibrahim shabakada wararka ee Caynaba News magaalada Burco.